بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal idinkama qarsoona maalmahan baraha bulshada waxaa haystaa muuqaalo ay ka muuqdaan anshax xumo iyo dhaqan xumo kuwaasoo la leeyahay waxa ay laga duubay ama ay ka dhaceen magaalada Laascaanood. Arrintaasi waxaanu leenahay waa arrin been abuur ah, waxaanana kama jiraan. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuu ogyahay inay been tahay, dadka waxaan faafinayana way ogyihiin inay been tahay. alxamdulilah, dadka badankiisna way ka dharagsan yihiin inay tahay dacaayad iyo been. dadka muuqaalada noocan oo kale ah wareejinaya ee leh Laascaanood ma sidaan baa u dambeysay, Laascaanood arka, waxaasi waxay ka leeyihiin ujeedo daahsoon oo isleeyihiin shacabka iyo dadka mataqaanaa ciidamada halkaa jooga qoorta isu geliya. laakiin ilaahay mahadiis waxa weeye in beentooda la ogyahay. marka aan taa ka soo gudbo diinta islaamka ee wanaagsan, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu reebay been abuurka noocyadan oo kale ah in la faafiyo. laba midba ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka hadlay. kuwa jecel inay xumaanta dadka ku dhex faafto ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka hadlay, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi aladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya waalaakhira. kuwa jecel inay xumaanta ku dhex faafto dadka mu'miniinta ah adduun iyo aakhiraba waxay leeyihiin cadaab aad iyo aad u daran ayay leeyihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaan ka magan galnay. sidoo kale waxaa dembi ah dad wanaagsan oo abriye ah oo dhowrsan oo mataqaanaa dhaqan iyo diin leh inaad wax ka sheegtid, gaar ahaan aad dumarka wax ka sheegtid. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waaladiina yarmuuna almuxsanaati alghaafilaati almu'minaati lucinuu fi dunya waalaakhira. gabdhaha dhowrsan, haweenka dhowrsan ee mu'minaadka ah ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabsanaya, qofka dura ee xumaan ku tuhma, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu nacladay aakhiriya adduun. nacladda ilaahayna waxa weeye raxmadda ilaahay subxaanahu wa tacaala oo lagaa fogeeyo. walaalayaal, dadka noocaas ee aadka u liita, ee ka xishoonaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala, ee ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanaynin oo beenta la soo taaganin, waxaa la joogaa xilligii mataqaanaa laga hadli lahaa, dadkana looga digi lahaa. waxaase ilaahay mahadiis ah dadka badankiisa inay og yihiin waxyaalahan inay yihiin waxyaalo been abuur ah, inay yihiin muuqaalo horey loo duubay, meelo horey oga dhacay. runtii muuqaaladaas xataa iyo ficilada noocaas oo kale ah meeshay rabaan ba ka dhacaane waa wax xun weeye, diinta islaamkana ma ogola. marka dadkaasi laba dembi boo isku darsadeen. kow, inay xumaan faafiyaan horey u dhacday oo ay dib u soo noolaysiiyaan, iyo inay been u qasdiyaan. oo beenta ma ogtahay haddii aad sheegtid waxa weeye beenaale ayaa tahay, xataa haddaadan u qasdinin. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay kafaa bilmar'i ithman, qofka waxaa dembi ugu filan an yuxaditha bikulli maa samic, wax walba uu maqla inuu horey mataqaanaa kasii sheego, uu dadku sii sheego. saas darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka cabsanno. dadka xumaantan faafinaya waxaan leeyahay ujeedka aa ka leedihiin waa la ogyahay. ujeed mataqaanaa hadda loo soo jeeda ma ahan. reer Laascaanood waa dad sharaf leh, hablahooda waa dad sharaf leh. magaaladaasi waa magaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala laga weyneeyo. runtiina waa magaalada aan lahayn hotel muusig lagu qabto, kalaab aan lahayn, meelo la iskugu soo baxaan lahayn. bal waxaa la sheegaa inay tahay magaaladii ugu horreysay ee laga hirgeliyey hay-adda farista wanaagga iyo xumaan reebidda. allahu akbar. dadka mataqaanaa dhaqankaas soo jireenka ahaa lahaa, diinta islaamkana ay mataqaanaa ay aad ugu dhaqmo in maanta hablahooda meel looga dhaco. horta marka koobaad adiga soo sheergaraynaya, adiga soo gelinaya ee isla wax isku dir ayay horta ceeb kugu tahay, waana lagu ogyahay ujeeddadaad ka leedahay. laakiinse waxaa lagu sheegayaa marka koobaad dadku aad la hadlaysid iyo dadka aad wax u soo gudbinaysid inay yihiin dad ayakuba kaa caqli badan, beenta aa faafinaysidna og. marka waxaan si hoose iyo si koraba u leeyahay yaan lagu katoomin arrinta noocaas ah, waa been abuur. waxaa soo haray muuqaalo la leeyahay ciidamada ayaa khamri cabaya, magaaladii khamri ayaa soo galay. horta khamridu waa dembi in la cabo, ilaahay subxaanahu wa tacaala uu xarimay. saasay tahayna waxa weeye dadka qaarkood inay cabayaan ama ay mataqaanaa ay damcinayaan shaki kuma jiro. laakiin horta sawir haddaad aragtid, sawirkani xaggee laga qaaday, dadkani yay yihiin, adigu waa ina caqligaada isticmaashaa. ma ogtahay qofka markaa aad internetka wax ku aragtid wax walba ha rumaysanin. marka waxaana maalmahan socda been abuur, adigaadan hadlaya oo afkaada caadiga ugu hadlaya ayaa cod lagu kor saaraya, been lagaa sheegaya. ma garat, haddii la rabo codkaada ayaa la koobiyeynaya. adduunkani waxaa socda farsamooyin aydan fahmi karin oo aad iyo aad u weyn.
aad iyo aad ayaan oga xunnahay meel ku dhaca iyo sharaf ku dhaca mataqaanaa lagula kacayo shacabka magaalada laascaanood ee gobolka sool. waxaan kaloo halkan fariin oga dirayaa cid kastoo awood u leh dadka noocaas ah inay wax ka qabato inay wax ka qabtaan. dadkani waa la yaqaanaa, magaalooyinkay joogaan ayaa la yaqaanaa. marka dadka yaqaanow iyo mataqaanaa maamulada ee hoos joogaanna waxaanu leenahay dadkaasi wax laga qabto. mar labaad waxaan ka digaynaa in beenta la faafiyo. waxaa lagu jiraa bishii barakeysneed ee ramadaan, gaar ahaan waxaa lagu jiraa 10kii dambe. wax walba oo aan samaynana waana la weydiinayaa, wallaahi ilaahay subxaanahu watacaala wuuna weydiinayaa. marka adigoo isleh been ama dacaayad abuur inaad dadka aflagaadaysid waa arrin adiga wax kuu dhimaysa, aakhiradaadana wax u dhimaysa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.